Andenya lani maulani ibna qolka ugu jaban ayaan rabaa inaan muuqaalkan iniga diyaariyo ma iskaabuna ku deganaa kaliya deganaa qolku markaa mas'uuliyadu dibadda ku leeyahay mise gudaha ma yani qolkay gudu kule meeqay ka qaada mar hore dee 2 sano degay 25 kun oo lacag ahaan doora wax ku taamaaqan marka hal qolba 25 ha أشهد أن محمدا رسول saaxiibadayda aan aaladan platformka ku saaxiibnay waxaan rabaa muuqaalkan inaad kaga bogataan qaabka guryaha loo kiraysto qiimayaashooda iyo qaabka lagu noolaado caasimadda Addis Ababa gaar ahaan xaafadaha ay Soomaalida ka degaan amaba ay ku badan yihiin sida xaafadaha Booli Mikeel iyo Booli Bulbula oo masaafo ahaan isku jira 6 kiiloomitir haddabay muuqaalkan si fiican uga bogo. Assalaamu calaykum saaxiibayaal maalin wanaagsan baan leeyahay intay habeen u taana habeen wanaagsan channelka aad nagala socotaan waa Maslax Vlogs waxaad uga barateen muuqaalo kala duwan haddii aad fadlan ku cusub tahay subscribe like share noo sar haddaad nala joogtana aad baad ugu mahadsan tahay maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay inaynu eegno guryaha kiradooda amaba qiimayaasha magaalada Addis Ababa bartan ayaynu ka bilaaban doonaa guryo kamid ah ayaynu geli doonaa waxaynu ogaan doonaa qaabka ay u nool yihiin kulli halkan aynu ka bilaabanaa kuwa ugu hooseeyna waan tegaynaa kuwa ugu sareeyana waynu tagi doonaa ee muuqaalka fadlan hadduu ku soo gaaro si dheereeban kule saaxiibayaal hadda waxaynu soo gaarnay gurigii koowaad aynu ka bilaabi lahayd qorshaha amaba guryaha kirada mid kamid ah ayaan geli doonaa oo halkan ku yaala waxaan maleynayaa guryaha Addis Ababa la dego waa noocyadan bay leeyihiin hadda waxaan soo galnay qol kamid ah qolalkii aan ii sheegayay oo dhalinyar kamid ay degan yihiin salaamu calaykum saaxib seetahay maxaad maanta ku soo booqanay aad baanu kaaga mahadcelinaa inaad noo ogolaato muuqaal inaan ka duubno guriga aad ka degan tahay magaalada Addis Ababa ما شاء الله waanaad ku mahadsan tahay koley run ahaantii waxaan ku jirnaa hadda qolka uu wiilku degan yahay waa keligii baan filayaa waa qol isku dhammaystiran oo furihii korka ku leh allahu mustacaan daarad yar leh allahu mustacaan sidoo kale musqushii buu leeyahay marka waynu eegi doonaa saaxiib qolkan bishii misaad ka bixisaa يو كل قدرت وكرة جدوين هي صح لكن بريء وحنا كده جنا حي أنا سأقول كنا كده جنا صح oo kaale iniguma kordhiyaan ماي وما كرديان لكن بديو قيد كرة جدوين وضدك كوكر ديو okay sax لكن أنا إلهم كقصة أنا لدى جنا حي وما كردين marka kuma xisaabtamaan dollarkii baa kacay iyo dollarkii baa hoos u dhacay waxaas dadku kuma xisaabtamaan soo ma بريها قيبة كل حساب تما جرو لكن okay بريء أنا جهد عند جنا حي وما okay حساب تما وحاس okay kan marka wuxuu noqon karaa sariirtan iyo qalabkan adaa qalabaysta uu marnaaban file بريء هو برنا okay kadibna bil kasta 9,000 baad u sii deysaa سجالكم ما نترى waxaa jirta xaafadaha qaar in laga cabanayay inay biyuhu weekii hal maalin u soo dhacaan ama 2 maalmood idinka xaafadiina ka warrama صدق بريء وكله اللي بريء ما كان معنا ما نستحق توصل عيان okay الحمد لله رب العالمين su'aalaha aanan kugu badinayn areadan waxa lagu magacaabo aan filayaa waa Booli Mikeel laakiin waxay ka sii tahay baa la yiraahdaa xaafadda Sasadistiga ama masaajidka hoostiisa masaajidka ugu weyn ee xaafadda Soomaalida Nido مساجد وين الصومالي ده okay intaasuu kaga fiican yahay xaafadaha kale gurigan okay bal ka waran habeenkii jidka safekiisa ama maadaama hadda soo maraya luuq waa soo marayay ka waran luuqiina may jiraan dad ilaaliya oo safe ah ها دad waardiyaalaho xaafaduhu ay samaysteen baa jirto wax tuugaya waxaas ilaahay markii ma jiraan xaafad iska safe oo alxamdulillah marka gurigaagan hadda 9,000 bay meelaha kale guryaha kugu dhow single ka ardaydu ay digi karaan
waa iyagana meeqaas odhan kartaa kuwa ka raqiisan baa jiro kuwa ka qaalisanna way jiraan marka kolba guriga ayay ku xidhan tahay qofka iska leh iyo guriga sida uu yahay bay ku xidhan tahay laakiin hadda qolkan oo kale dee run ahaantii uu ka badan yahay hal qof iyo laba qof uu ka badan yahay baan filayaa aad buu uga badan yahay waa qol weyn suuliguna aad u gaar ku yahay cid kula keligii uu gaar yahay waa kana uu ku jiraa okay ku qaban kartaa waa si wanaagsan saaxiibayaal aad buu mahadsan yahay wiilka informationka uu ina siiyey wayna caawinaysaa baan u malaynayaa waxaanan eegaynaa hadda musqushiisa bal sida ay tahay muhiimadda koobaadda guryaha laga eego markaad soo degaysid waa musqusha amba suuliga ama xamaamka kolba saad u taqaanid kaasaynu eegaynaa muuqaalkeennan halkan kuma joojin doono waayo gurigan wuxuu ka mid yahay guriga aan odhan karno qof bini'aadama ama single ayaa degi kara oo maaragtay dhexdhexaad ma odhan karnaa hoosna ma sii odhan karno waa normal kuwa kasii sarreeyo oo way jiraan waynu eegi doonaa bal waxaan hadda gali rabaa musqushiisa okay wow waa kan halkan waxa lagu dhigay waa kabihii inaad ku gasho bartaa musqushiisii okay leerka hagee laga shidayay xagga kor okay halkan uga shaqeynaya wallahi wuu ka badbadan yahay maasha allah wey lacagtan dee waxaan leeyahay wayba aad bay u jaban tahay waayo meelaha kale dhalinyarta inta badan markaan weydiiyo waxay igu dhahdaan waa aad buu qaali u yahay bay igu dhahdaan qaar 15 kun aa jira laakiin nasiib buu leeyahay maadaama 9 kun laga siiyey wiilka saabaad iskaga xidhay qaybtanna uu iska sharaxday okay sariirtuna aad bay ugu weyn tahay saaxiibayaal kan waan haynaa oo qiimihiisu waa 9,000 dollar ahaana hoostaan iigu soo qori doonaa waan qaybin doonaa guryaha kalena waynu soo eegaynaa muuqaalkan fadlan hadduu ku soo gaadho siduu dhalinyarta kale u gaadho ama dadka faa'iidada raba gaarsii saaxiibayaal hadda waxaan ku suganahay xaafadda Soomaalida mid ka mid ah guryaha ay degaan walibana qolka ugu jaban ayaan rabaa inaan muuqaalkan iniga diyaariyo kii kale aan soo diyaarinay wuxuu ahaa ka macquulka price-da macquulka kana wuxuu noqon karaa ka ugu jaban eenan mid ka sii hooseeyo uunan jirin bal gudaheena u galaynaa muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa information ko buuxa haddii aad u baahan tahay inaad guryo kiraysato hadday furniture yihiin hadday maran yihiinba kan uu maran yahay u malaynayaa waana qolka ugu jaban ayaa leegu dhahay waan eegayaa hadda waxaan ku suganahay guri ka mid ah guryaha ku yaala xaafadda Soomaalida ugu jaban walibana ayaan ku soo booqday wiilkan waa hal qol oo sariir taalo qaybta boorsadihii baa u yaala qaybtan kabihii baa u yaala walow tixgeliyo guri kaba waxba saarinay guriga soo gal soo ii sheegayna maaragtay bilbil buu u bixiyaa lacagta waana qiimaha ugu jaban baan oran karaa intii aan guriyo soo mareeyay ama aan informationka soo ururinayay saaxiib luqadda ayuu ku hadlaa luqadeena inkastoo ku yar adag tahay waxaan weydiin rabaa imisaad bixisaa bishii bishkii walaalo badan ma 5 kun wax badan ma 5 kun baad bixisaa 5 kun okay marka bilbil baad u bixisaa mise 2 bilood may bilbil marka ma lagu kordhiyaa may waxba laguma kordhiyo furahagana waa lagu siiyey okay waa si wanaagsan saaxiibayaal 5 kun xaggan ayaan igu soo qori doonaa inta ay u dhiganto dollar ahaan kushin muu leeyahay maya kushingi male kushin male sariirtan baa ku taala taas sariirtii waa marka ma adi kaliya ku saxan kara mise marti waa qaban hal qof martina hal mar adoo iman waa saxan kara aad saxan kara martida saaxiib qolkan aad buu uga badan yahay isaga halkaas ku saxanaya halkana marti ku seexinaya waana 5 kun oo bir wallahi aad iyo aad buu jabanta waa qolka kaliya ugu jaban shower kuna marka dibadda kugu yaala showerka dibadda kugu yaala okay waa si wanaagsan aad buu maasan yahay information kuna siiyay saaxiibayaal muuqaalkan haddii uu ku soo gaadho fadlan fogee si aad information buuxa uga hesho guryaha kiradooda qaabka loogu nool yahay magaalada Addis Ababa gaar ahaan walibana Soomaalidu sida ugu nooshahay
saaxiibayaal waxaan marayaa mid ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu degto ee labaad ee cusub ee welibana labadii sane u dambeysay ay degayeen dabaqyadan iga dambeeya ayay degaan waa sida baartimo oo kale waa noocyo cusub soo maanta waxaan rabaa qaybteena dambe inaan guryo ka mid ah aynu galno oo aynu eegno familiga inta ay ku degayaan qiimaha iyo welibana inta qolu ka kooban yahay hore ayaynu u soconaynaa goobtan ay hadda ku soo badan yihiin dadkeena ama qowmiyadeennaba ciiddaasi ka badan yihiin ilaa xaggaa hore waad yaabaysaa aad waxaa la moodaa dowlad kale ama state kale la moodaa so waxaan eegaynaa waa state gaar aan leenahay xaafaddan waa xaafadda labaad ay degto Soomaalidu tii hore waxay ahayd Bool Mikeel bay ahayd oo waa suuqa ugu weyn ee iyagu ay degaan ama laga ganacsado hadda laakiin xaafaddan waa xaafad cusub oo labadii sano u dambeysay ayay soo kordhaysay so waan eegaynaa kadib guryaha mid ka mid ah ayaynu eegaynaa so waxaan rabnaa qolkan oo familiya inaan galno kadibna inta qolu ka kooban yahay shaawarka barta kaga yaalo musqusha kushiinka ama jikada saa u taqaanidba so let's go saaxiibayaal waxaan ku suganahay hadda gurigan inii sheegaya ayaan bartanka ugu jiraa qaybtan aan fadhiyo waa fadhigii ama saaloonkii saa u taqaanid waayo fadhiyadan mar hadduu tv-gu bartaas kaaga muuqdo waa qaybtii fadhiga marka waxaan rabaa gurigan waa guri familia run ahaantii informationka sida ay igu siiyeenna waxa weeye furniture maaha full furniture maaha waa familku iyagaa iska soo dhigtay alaabaha marka waxaan rabaa inta qolku ka kooban yahay inaan inii sharaxo so waxaan rabaa inaan gudaha usii galno bartaa waxaa iga muuqda waa calankii Somaliland run ahaantii Soomaalidu waxba ma kala le waa family halkana waxaa iga muuqda calankii Cawaale marka maxaa dhiman saddexdii calan ee Soomaalida kala dhiman soo saddexdaana wayna heli doonaa halkan waa fadhigii bartan fiisku leeyahay marka dabaqyadaas oo dhan ba halka ka xiga daaqadan way furmi kartaa kadib qolkan isagana waa qol la seexan karo oo hurda saas uu sharaxan yahay oo xaafadda sharaxatay halkaasna weli Cawaale iga muuqda waatan sariirtii intan yar waa space ba halkaa ka muuqda marka halkan sidan wuxuu u dhan yahay hal qol buu dhan yahay qol iyo fadhi baad iga haysaan let's go weli fadhiyaan ku soo noqonay hadda waxaan rabaa inaan xagga u sii gudbo halkan qolal baa ku yaala luuqana la maraya kadib halkan qolkan hadda aan soo galnay sida la ii sheegay martida ayaa loogu talagalay runtii martida way ka badan tahay martida sidiisuu u sharaxan yahay furaashkana hataa qof kale ku seexan kara ya kan waa qolkii martida sida la ii sheegay oo saasuu u dhan yahay halkan aynu taagannahay sidan haddaynu u galno waa kushiinkii ama jikadii oo u dhammaystiran tahay qaybtii faraxalka ama weelkaad ku dhaqanaysay sidoo kale aad furniturekeedii way dhan tahay wax ka dhiman ma jiro marka maxaad iga haysaan fadhi hal hurda iyo jikadii iyo welibana qolkii martida waxaa inoo dhiman xagga koowaada laga eego qolalka inta badan waa musqusha ama suuliyada iyo shaawarka laydkaan shito hadda waxaan ku dhex jiraa waa qolkii shaawarka ama musqushiisu wata qaybtan faraxal bay kulley biyo ma shaqaynayaan baan filayaa marmar way go-aan biyuhu waan weydiin doonaa qaybtana waa ka shaawarkii iyo suuligii hadda suuligii baad iga haysaan haddaan xaggan u kacno waa king size buu noqon karaa oo qolkii hurdada ugu weynaa uu noqon karaa waa kan
saluweyn baa taala soo qolkii ugu weynaa ayuu noqon karaa muhiimadda waxaa laga eegaa waa fiiska daaqada maaragtay oo waxaasoo dhan baad daawanaysa aroortii cadceeddu markay soo baxdo iyo welibana inaad neecaw ka raadiso hadday tahay galabtii soo hadda waxaynu ku sugannahay waa dabaqa saddexaad blog bay kala leeyihiin ama loo kala dego blogga 16aad baan joognaa building kasta blog buu leeyahay number buu leeyahay kuma khalkhalaysid soo halkaa waxaa iga muuqda blogga saddexaad soo kuwana waxay noqon karaan blogga 7aad iyo 8aad iyo markaa marnaba kama lumaysid waxay leedahay albaab weyn oo laga soo galo qaybtii baabuurta la dhiganay parkingii security supermarketyadii wixii oo dhan oo dhammaystiran ay leeyihiin saaxiibayaal soo hadda waxaad iga haysaan waa laba hurdo kii maaragtay fadhigii iyo kii martida iyo jikadii soo waxay noqonaysaa waa 3 maqsin bay noqonaysaa iyo jikadiisii fadhigiisii soo waxaan samaynaa saaxiibayaal barta fadhiga ayaynu ku laabanaynaa halkan ayaynu ku kala qaadanaynaa informationka inta la iska rabo qiimaha kirada guryahan iyo welibana inta bilowda la bixinayo iyo welibana in deposit laga dhigayo iyo inaan laga dhigin sharciyadiisa hadda ayaan rabaa inaan nisha faahfaahiyo waxaan ku suganahay xaafadda booli bulbula mid ka mid ah halkan iga dambeeya hilibka muslimka ayaa lagu iibiyaa marka xaafadan ugama baahno inay boolibikeeda tagto isla halkan ayay ka adeegan rabaan waa hilib lo ah waa hilib muslima adeegina xaggaas baaxiga marka xaafadani xaafad kale inay tagto uma baahna baan odhan karaa halkan ayaad ka soo doonan kartaan saaxiibayaal intaas waxay noogu dhannaa gurigan family roomka inta qol uu ka koobnaa iyo fadhiga hadda waxaynu ku sugannahay waa fadhigii waxaan rabaa markaa qof kasta meel kasta ha joogo amaba qofka ku han weyn inuu magaaladan Addis Ababa dego welibana xaafadan cusub ee lagu magacaabo Booli Bulbula waxaan rabaa markaa inaan qiimayaasha halkan inii sheego run ahaantii qolkan waa family room wuxuu ka kooban yahay saad video ku soo aragteenba waa fadhigii 2 qol iyo welibana qolkii martidu ay seexanaysay iyo kushiinkiisii oo gaara iyo welibana showerkii marka qolkan full furniture maaha uu meeran yahay bishii waxa laga rabaa 40,000 30,000 50,000 marka qiimayaashu way kala duwan yihiin waxayna ku xidhan tahay qofka ownerka wanaagiisa hadduu yahay qof lacag qiimeeyana oo kugu dalaci hadduu yahay qof dadnimada yaqaanana hoos ayuu kaaga dhigayaa marka waxa jirta biyaha siday xaafadu ii sheegtayba maba go'aan mar dhif iyo naadir hadda xaafadaha kale muuqaalkan iga soo duubay waxa laga yaabaa weegiiba inay mar soo dhacaan qaarkood 5 cisho 2 cisho 3 cisho marka xaafadan Booli Bulbula lagu magacaabaa waa xaafad cusub waxayna u jirtaa xaafadda Boolimike la yiraahdo masaafadan 4 ilaa 5 kilomitir bay u jirtaa oo waxa ka shaqeeya saad u taqaanaa ama basaska ama BL ka kolba sidii aad u taqaanaanba marka saaxiibayaal waxaynu soo duubnay qolkii ugu jabnaa kii dhexe iyo kii ugu sareeyay macquulka waxa inoo dhiman luxury-ga marka wuxuu noqonayaa inaan muuqaal gaar ah ka soo diyaariyo maadaama aad u weyn yahay oo maaragtay noqon karaan family room weyn uu noqon karo sharaxaadiisuna ay aad u dheeraan doonto marka bartan ayaynu ku soo xidhanaynaa muuqaalkeena fadlan hadduu ku soo gaaro muuqaalkani fogee si uu asxaabta kale u gaadho haddii aad nala sii joogtayna aad baad ugu maasan tahay haddaad nagu cusub tahayna subscribe intaad noo dhigto yaa inaad erow ama walaalow si aan meel sare u gaadhno waxaan ku leeyahay muuqaal xiise leh ayaa ku xigi doona sidaas iyo kulanti dambe